madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tan iyo intii loo doortay jagada madaxtinimo ee Soomaaliland waxa uu markii ugu horeysay booqday xarunta guud ee xisbiga muxaafidka ee Kulmiye ku leeyahay magaalada Hargeysa. Booqashada madaxweynaha ee xarunta guud ee xisbiga Kulmiye ee ku taala magaalada Hargeysa ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay markii uu gaaray garabka haweenka xisbiga Kulmiye iyo sidoo kale mas'uuliyiinta sare ee xisbigaasi. Waxaana madashaasi ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga Kulmiye Xasan Said oo ka warramay ujeedada oo madaxweyne Muuse Biixi u yimid xaruntii guud xisbiga ka soo baxay Kulmiye oo uu soo booqday tan iyo markii xilka jagada madaxtinimada ku guuleystay maadaama uu xafiiskan yahay kii xisbiga Kulmiye loogu oranay isla markaana ahaa xafiiska guud ee sida gaarkaaba looga kala waday xarumaha kala duwan iyo ololihii kala duwan ee xisbiga Kulmiye ku soo baxay doorashadii madaxtinimada ee dalka ka dhacday. waxaanu yiri xogaya Xasan Said madaxweynuhu mariyahanba waxa uu doonayay intuu iyo yimaado xisbiga yimaado dadkiisii iyo haweenkiisii iyo mas'uuliyiinta xisbiga iyo dadka xisbiga yimaado la sheekaysto hawlo badan baan ognahay ayaa ku furnaa oo xagga xukuumadda iyo dhismaheedii ah maantadan dabeedna ballanku waxa inuu isniinta yimaado iyadoo imka ay hawlo badan u yaalaan saaka ayuu iloobay waan imanayaa 12 waa in halkan ku yimaado waa kan waydu sheekaysan doonaa waa markaas aynu idin baashiro la sheekayso aynu halkan ku haasawnaan baynu u nimi ajandaheenu waa guud ahaan waa isasaan iyo markaas isu mahad celin. inkastoo aanu madaxweyne Muuse Biixi ka hadal goobtaasi xafiiska guud ee xisbiga Kulmiye markii uu booqday hase yeeshee si hoose waxa isku xog wareysteen garabada kala duwan ee xisbiga iyo sidoo kale hoggaanka sare ee xisbiga Kulmiye. waa markii ugu horeysay madaxweyne Muuse Biixi soo gaaro xafiiska guud ee xisbiga Kulmiye tan iyo intii loo doortay jagada xilka madaxtinimada Soomaaliland. Cabdiraxmaan Carab Daawud, Kalson TV, Hargeysa.